jaamacna annagu oran mayno cashar u tufee abti istaaqfurollayso dadkana ha qaybinin dowladdaa idiin fasaxday annana raalli baanu ka nahay wax wanaagsan ha ka soo baxaan abtiyaal bismi illaah وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين أنا واه سلطان عبد الله قراد علي عرتن واه سلادين تا كم إذا سلادين تا سومالي لان هل كان وحن كسلام يا دمان سومالي لان دبدي يجودبا بري يا قلبيت با ميلي تشوغان با السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa intaa ii raaca halkan waxaan doonayaa inaan arrimahan beryahan ka taagnaa gobolka bari ee laascaanood ee shaqaaqooyinka iyo rabshadahu ka dhasheen inaan hadallo kooban ka idhaahdo. marka hore waxaan tacsi u dirayaa dad wixii ku dhintay inta ku dhaawacantayna inuu ilaahay u boogadhayo, dadkii inagaga dhintayna in ilaaha rabbilcaalamiinka ayuu jannat alfirdowsa geeyo, iyaga iyo meytideennii iyo meytidoodii ilaa iyo awow ka awow in ilaahay jannada wada geeyo, cadaabtana ka badbaadiyaan halkan ilaahay uga baryayaa. ilaahay waxaan kaloo ka baryayaa arrimahan ka socda imika laascaanood inuu albaabadooda khayrka ilaahay ina tusiyaa, inoo furaa, albaabada sharkee ay leeyihiin iyo cidda wadana ilaahay inuu inaga xidhaa. intaasi waa iga tacsi iyo duco. waxaan ku darayaa waxaa halka kan laga hadalhayaa dowladda iyo reer sool iyo reer khaatumo, dowladda iyo shacabkaba wixii ka khaldan marka laga wada hadlo ee ay wax ka soo baxaan ayaa dee wax la ysaga qiri ama la yskaga waayi, waa laga wada hadlayaao taa ka hor dhici maayo. ta nabadda waynu u baahan nahay, shacab iyo dowlad, tijaar iyo faqiir, haween, caruur, waayeel, kulliga waynu u baahannahay min bari ilaa galbeed. nabad baa wanaagsan, nabad baa caana leh, nabad baa hurdo lagamo leh, nabad baa wax walba lagu helaaye. nabad baan ku baaqayaa in lagu soo celiyo dalka, ma garanaysaa, inta ay shaqaaqadu ka socoto gaar ahaan magaalada sool in nabad lagu soo celiyaa, nabad lagaga taliyaa, dowlad iyo shacabba aynu inagoo mid ka ah nabadgelyadeenna aynu nabad wax ku wada qabsanaa, ku wada hadalnaa, wixii la kala tabanayo nabad ha laysugu sheegto. taasina waa qodobkaa. nabadda waynu u wada baahannahay. afxumo waxba ma tarto. waxaa la yidhaha afxumo nabadna way kaa kaxaysaa, colaadna waxba kaagama tarto. hadallaa soo dhacdhacaya, qaarkood dadka qaarkood ka soo yeedhaya, labada garabba labada geesoodba waxaan leeyahay war waa la noolaanayaa, arrinta tani way dhammaan, nabad baanay ku dhammaan. waxaan idinka anigaba yaan idin farayaa naftiin iyo taydaba in horta marka hore nin waliba aakhiradiisa u tudho, in ilaahay laga boqo, in ma garanaysaa ay taariikhdu way qormaysaa. waxyaabahan muraayadaha laga hadalhayana shanta qaaradood ee adduunka laga daawanayaa, gaalada waa loo turjumaa, xitaa waa la noolaanayaa. yaanay ninowna naanays kugu reebine, nin walowba hadalka aad leedahay u fiirso, dhug ulahow oo kiisa qiimaa leh ku hadal, ka kale ee xamaasadaysan ama siyaysan dib u reebo ayaan intaana ka leeyahay. arrinka sool iyo sanaag iyo cayn waynu wada degnaa, beelo badan baa wada dega, waynu wada leenay, maynaan tirsan sida loogu kala badan yahay. rag horaa ka hadlay, waan ku raacsanahay, caynabaa lagaga hadlay, maanta galbeedka buuhoodloo qorluguda ayaa dhin garboodkoodii iyo cuqaashoodii iyo odayadooda ay kaga hadleen. waynu wada degnaa, nina gaar uma sheegan karo, waynu wada leenahay. wada lahaanshaha cawska iyo biyaha iyo caanihiisu waynugu deeqaane, haddaynu kala sheegano dee waynugu qoobad buu inugu noqonayaao qaar baa waxba waayaya. markaa taana waxaan leeyahay anigu malaa ra'yigayga, war malaa waxaa inoo fiicnaa inaynu marka hore inta aan la sheegan meella aynu isaga nimaadnaado. horta marka hore dee abtiyalaa tidhaahdaanba dadka sool iyo sanaag iyo cayn degow waa inoo shirweyne oo aynu shirweynaha kaga wada hadalnaa. sool iyo sanaag iyo cayn yaa leh inta lihi markay soo baxdo
ay markaa ka tashadaan aayahooda iyo waxa ay ka hadlayaan iyo waxa u dana iyo meesha ay u tujinayaan taa inaynu ka wada hadalaaba fiicnayd intaa gaar idinku u xambaaranaysaan arrimaha magaranaysaa ay da inaga wada dhexeeya waxaan leeyahay taana dhulka dhigoo dee abtiyaal aynu ka wada hadaloo qolo waliba ay waxa raaca dee ha sheegato oo waynu wada leenahay qolana gaaruma leh taana saasaan leeyahay garaadada waxaan odhan lahaa garaadada abtiyaal waxaa tihiin madax dhaqameedyo halkii ugu sarreysay baa tihiin koofiyadihii annaga iyo idinkaba dee garaadada u ahaa marka abtiyaalow colka jooja cadaawadi waxba ma tarto nacayb waxba ma taro dhalinyarada iyo dumarka waxaan la geliyey ee laga buuxiyey ee xiqdiga ah ee aanaan hayne aanaan ogeyn ee salaadiinta iyadu ay ka dhaarteen meel dhulbahante loogu tashaday ama colaad lagu abaabulayo suldaan maxamuud guuleed wuu dhaarto wuxuuhi war wallaahi ma ogi inaad rumaysataan bay ahayd waa nin wadaada annaguna haddaad dhaari doonaysaan waa idinku dhaaranaynaaye colaad aanu isaga nimi oo aanu idinku soo wadno oo hore usoo wadnay oo aanu ognahay abtiyaal ma jirto abtiyaalow colka jooja hubka dhiga nabad ku baaqa cimaamada iyo madax dhaqameedku waxa weeyaan arrintoodu waa nabad hubka inay qaataan maaha idinku ka ugu dambeeye markay ka fursan weydo yidhaahda dee aynu dagaalana ahaan laydeene ka dhalinyarada soo horbooda ha noqonina taana intaasaan ka odhanayaa waxaan in yar odhanayaa si gaara garaad jaamac wuxuu sheegay laba gumood gun horay u ahaydo wuxuu yihi 17 sano ka hor baan ka hadlayo waxaan idhi buu yidhi gun ninna kula tartami maayo garaad gunnimadaa ninka aad kula tartami weyday isna waa is og yahay adna waad og tahay dee adigu waa diidaye ka kalunbaa mala arrinta aad u xambaarinaysay ninkaa idinka is og annagu ma ogin laakiin qodobka labaad ee gunnimada ah ee aad ku sheegtay beelaha somalilan ka mid ah oo aad habaryooni soo qaaday oo aad tidhi waa la gumeeyey abti ceeb arrintaa xaal ka bixi habaryoonis gun maaha hore umay ahayn imikana noqon mayso abti waa nimanka haliyayada annagu libaaxyaanu dhinaanaa haddaad annaga isaaqahana waraysan lahayd waa libaaxyadayada waa nimanka marka wax yimaadaan hubka noo sida ee magaranaysaa ee halgama ee magaranaysaa ee aanu ku hirano weeye beel inaga mida beelaha somalilanna in gun lagu sheego abti waa ceeb mar baynu qaldanado gabooyahaynu odhan jiri xaal baanu ka bixinay in badan baa laga hadlay waa dad walaaladeena waa dad inala siman ta hore lagu lahaana ceeb bay ahayd maanta qaar cusub inaad tidhaahdo gun baa tihiin taasna waxaan leeyahay abti xaal ka bixi gun maahee haddaadan nimanka cid ka aqoonin habar jeclun baanu isnaqaan baa tidhiye waa niman halyeeyaa halgamaaya aan gunnimo iyo wuxu dhowtoona lagu tilmaami karin qaadana karin iyagu ka hadli maayaane annagaa ka hadalaye abti arrintaa xaal ka bixi taana intaasaan ku dhaafayaa waxaan kaloo aan kusoo gabagabaynayaa dacwadayda wadanku waa somalilan xuduudaha koora jeexay ee aa marna leedihiin ingiriis baa jeexay adduunka kan aynu ku nool lahay oo dhan hadday asia tahay yurubta qaar north america iyo afrikaba xuduudahooda inta badan ingiriis baa dhigadoo jeexay ay ku kala naaloonayaan ay ku kala axadaysan yihin ay ku kala joogaan ay ku kala fiisayaasha loogu kala qaato mar quraa la wadaansixiyey tanna isaga ingiriis oo markaa haysta somalilan iyo talyaani oo koonfur haysta ayaa wada saxeexday united nationkay taallaa mid laga murmaayo ama cidi ka murmayso ma aha haddii taa laga murmo xuduudda dheere etoobiya inoo taalla waa laga murmayaa ta kenya inaga dhexaysa waa laga murmayaa ta jabuuti inaga dhexaysa waa laga murmayaa waa la ysku yaacayaa oo colaadu intan aad moodeen noqon maysaane taasina waa ta xuduudaha inagu somalilan baynu nahay harti baa ah isaaq baa ah gadabiirsay baa ah ciisaa ah intuba ciidamada aad sheegaysaana aa leedihiin ha baxaan ee tukaraq jooga iyo halka ka shishaysa a iminka u guureena garowga agteeda abtiyaal way ku wada jiraan dhulbahantaaba u badan maaragtay ciidan baxayana abti maaha
bixi maayaan ciidankuye wixii kale uga wareegi lahaydeena inoo dan noqon lahaa abtiyaal ha la sheego ha looga wareego wanaag baanu idinla doonaynaa wanaagga u soo leexda garaadadana ka toobad keena colaada aakhiraa la tegaya dhinaca ciid laydiin dhigaya wax allaala waa laydin su-aalaya waxa aa ku hadlaysaan garaad jaamacna dee waxaanu leenahay annagu odhan mayno cashar u tufee yaa colaadu way la fogaatay abtigae abti istaakfurollayso dadkana ha qaybinin somalilan ha qaybinin isaaq ha qaybinin inagu wada somalilan baynu nahaye wixii adiga kaa maqani hadday waynaga wada maqan yihiin aynu wada baadi doono dowladda wixii loo tirsanayo ee ku caddaada kaala mid baanu nahay mudaaharaadkaanu kula gelaynaa waanu wixii ku caddaada kaala mid baanu nahay dhib iyo dheef wixii nagaga yimaadaba laakiin waxaanu doonaynaa annagana ha iska kaayo fogaanoo cidlaha istaagin annagoo kula soconna wixii kaa maqan aanu kula doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadalka intaasaan kusoo goobayaa aada iyo aad ba u mahadsantihiin mar labaad baan idin salaamayaa waan idiin hambalyeynayaa shirka aa qabsateen dowladdaa idiin fasaxday annana raalli baanu ka nahay wax wanaagsan ha ka soo baxaan abtiyaal assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu